kuwa maalin qaylayo iska barjeynaya waa kan jamaacadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u galay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogana way baktiyeen oo wayna dhageysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeena mariyo na raac mid baa gacanta taagoo yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawalla wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uunbaa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihid nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina oqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meeshu ma miskiid baa meeshu salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raaca ima raacayo na raac jamaacadda intii kalaad soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninkii sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaato oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen dan saacaddaa gaadhaan u malayn waad yaa ma soo gaabiyaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaaga iyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebiguu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb arruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluuq oo faqiiraad noo timiday adoo haniya naga bixi maysid ama xoolaha halkaa dhig
oo maxamed adoo faqiir ka daba tag ama lacagtaada hayso magaalada Maka ku noqo wuxuu yiri horta nin Ruumiyaan ahay buu haddaad idishaan ana waxba niga dili soo lacag ma rabtaan ha lacagteedii waa tan qaata intii kalena meel heblaay ku aasatay kala baxo qaata nabigayga haga daba tagay ii dhaafo buu waxa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisa oo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay baar midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii oo dhan buu dhiibay wuxuu dariiqay banay haddaba rasuulkiiba ka daba tagayay su'aal laga yidhi waa kaas wadada mar madiina isagoona soo gaadhin ayaa quraanku soo degaya wa min an-nas man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardati Allah wallahu ra'ufun bil 'ibad magaaladii madiina markuu soo galayna rasuulka ilaahay baa hor taagan oo leh rabiha al-bay'u ya aba yahya rabiha al-bay'u ya aba yahya ya aba yahya ganacsiga maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayac musharka ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay buu rasuulku leeyahay wasali rasuulkiisa lacagta iyo ilaahay rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen ilaahay rasuulkiisa ay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen wada mustana bahalka Soomaalidu ay ku dheeraysaa waa bahalka dalkeena aan ku weynay ya Allah Mus'ab bin Umayr wad garanaysaan ilaah raali ka noqday muqri waa ninkii ugu horeeyay nabigu Madiina u soo diray weeyaan oo quraanka bareeray Madiina iyadoon Madiina nabi Maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri diinta u galiyay buu ahaa ree Madiina indhahooga iyo ubadkooga Mus'ab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayay ayaa ku jira 70kii mushrikiinta dagaalka Badar lagu soo qabtay la soo xidhay yaana soo xidhay nin reer Madiina Ansaariya soo xidho haysta halka Abu Jifa Mus'ab nasaas uu dhex socda Ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii Madiina diinta gaarsiiyay weeyaan marka Abu Dulmar saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku naasdaayay weeyaan wuxuu walaal xarigu igu adkeeyahay iga dabciye ii shafaacad qaado ka dabci dhabuudi Mus'ab sidaan intuu eegay buudi ya akhal Ansaari walaalkayga Ansaariga reer Madiino marba nabigu hadduu yiri nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaas madax furasho ka qaadanaysan buu nabigu yiri kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xariga ku adkay buu ka yiri walaalkay adiga ma habuura waa kaabud Ansaariga ka diintaan walaal ku nahay cid walba aniga iga dhow buu ka yiri xariga ku adkay buu waa gal weeyaan Abu Sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisii Ramla bint Abi Sufyaan waa zawjadii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday oo xoo damcay gogoshii nabigeena ku fadhiisto waa ka hoos qaaday markaas uu aabo ma hal diintii nabi Maxamed ma hal ka bay ku gaarsiisay inaad aabahaagii ku dhalay gogosha aad ka qaado oo gogosha yar aad u ogolaan weydo waxay tiri may aabahay baa tahay gogosha nabi Maxamed waa gogol taahira adiguna mushrik nijaasa tahay bay ku tiri nijaastan gogosha nabiga u diidanahay bay ku tiri islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul yaa qiimo agtooda inakana maanta wada arkaysan xaalkeena in diintu agteena qiimo yeelato ayaa doonaya ayaa u diyaar diinta ka shaqeyno marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo horuso waayo diintu adduunyada iyada ka raaci waxba ka raaci maayaan oo shay kasto oo maalkaaga waqtiga iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa mobilka yareed wadata Soomaad arkaysid ilman yar inuu qurrad ku xaquuqa madoo golan muraayadaas musbaar hadduu soo qado soo xaquuqa ka waran musbaar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhex maraya baadu sokorta ku sitay baa daloosantay
way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayli war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegaan garanaynaa lana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyoma badan sidaa weliba idinku waad naga fiicantihiin diintii baa maanta dhan inaga daadanaysa inaan soo qabanno soo maha dee ma qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsannaa balligiina dadaalka diintaa ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahada